سائل كان نبوحي شيخنا فاضل وحولي هاي شيخ نحاسكي أيان كشكي خبا شكي قاسنا وحايقو برويري iyadoo yani waqtiya oo aan munaasab ahayn oo guriga ka baxdo iyo labiskeeda aan ka shakiyay dhowr mar qalbigeygana arintaas aad bay murugo weyn igu riday arintaasna markay dhowr mar igu soo noqotay arin ay caado noqotay arintii xaaskeyga ayaa weydiiyay oo inaan ka shaki qabo iyadana waxay igu tiri igu jawaabtay isagoo ingiriisi ahaan kusoo qoray do whatever you wanna do yani sameey waxa sameyn karto arintii baan yani igu weynaatay markii saa igu jawaabtay xaaskeyga anoo kasii shaki qabo sheekhow arintan maxay ula talin lahayd buu leeyahay saidka fadal sheekh alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi ama bacd gabadha muslimadda ah waxaa laga doonayaa inay gurigeeda iyo ninkeeda ay si wanaagsan ay u dhaqato waqtiyaal aan habboonayn oon gabadh muslimada aan ku habboonaynna inayna bixin ayadoo la og yahay duruufta jirta mararka qaarkood iyo meelaha la joogay inay iska dhib badan yihiin oo gabadhi mararka qaarkood saacado dambeba laga yaaba inay meel wax ka soo qabsan karto duruuftaas wadamadan galbeedka nagu haystay qayb ka tahay oo wax kuu shaqaynayo badan uusan jirin gabadha muslimadda horta intaasaan ku waanin lahaa gabadhaana waxaan dhihi lahaa ninkaada haddaabad jeceshahay oo ninkaagii uu yahay ood og tahay qalbigiisa ilaali oo cudurka ku ridin oo cudurkaa ku sii weynaynin inuu ku jecel yahayna waa ay muuqataa marka jacaylkaa uga faa'iidayso oo dumar oo dhan buu kaa doortaye ha ku ridin cudur gaarsiin karaa hadda inta uu sheeganayo hadday noqoto labis asaga isu qurxi asaga mataqaanaa dhar wanaagsan usoo xiro insha allahu tacaala haddii ilaahay raalli ka noqdo saacado dambana ha bixin maxaa yeele gabadh muslimadaa tahay oo sharaftaadana ilaashanaysaa diintaadana waad ilaashanaysaa biidnillahi subxaana wa tacaala haddiise su-aasha lagu weydiiyey jawaabta ugu fiican oo ugu wanaagsan inaad siiso aad iyo aad ba u ficnaan lahayd laakiin waxaa rabta samee xogaa waxa weeyaan waa jawaab yar qalafsa walaalka waxaan dhihi lahaa gabadhaha ragga qaarkood gabdhaha waxay ku kalifaan waxyaalo aan loo baahnayn gabdhuhu waa gabdho da-yar yar oo wadamadan jooga qabowga ah caafimaad bay haystaan kaararna way haystaan lacagana way haystaan gabadhu marka waxay u baahan tahay maxaa la yidhahda mucaasharo wax la yidhaahdo in gurigii gabadhii nolosha lala qaybsado lala sheekaysto gogoshi lala qaybsado gabadhii jirkeeda baahida ay dareemayso ay maxaa la yidhahda ay ka bogato ninkeeda oo xalaala waxaa maro badan marka dhacdaa raggii inayma jooginba guriga oo ninkii iska maqan yahay 24 saac waa ay dhacdaa asagoo weliba laga yaabo inuusan ku maqnayn wax macquula oo reerka nacfiiso usoo hoynaya oo asagoon ku maqnayn marka gabdho badan oo dacful iimaan marka iimaankooda uu daciif yahay ayaa arrimahaas oo kale ka faa'iidaysta marka waxaan ku dhihi lahaa adiga waxaad ku talagashaa gabadhani horta inaad hoos u fiiriso baahideedana aad fiiriso labiska waxa ku kalifaya aad fiiriso saacadaas ay baxayso waxa ku kalifaya aad fiiriso cudurka adu inaad keentay marka hore aad isku xukunto cudurkiina aad baadho meesha uu ka imaaday haddaad cudurka heshana aad markaa cudurkii adigu daaweyso markaa culimo inaad su-aal weydiiso uma baahnid haddii markaa cudurka aad weydo xaaladda labaade markaad u marayso ay noqoto bal gabadhu qaraabay leedahay oo walaal bay leedahay oo aabbay leedahay oo hooyay leedahay inaad dhahdo bal gabadhii ila eego oo bal waxaa ku kalifaya haddii aan anigu sababkeeda aan ahayn ha laga waaniyo ha idiin sheegto haddii kalena haddee waxaan jeclaan lahaa reer isjecel oo sharafta reernimada ilaaliya inaan noqono reerkii markaa kula arkeeno arrintaas ayada ah intaa waxaan ku khatimayaa oon aan jeclaan lahaa muxuu ahaa inaan su-aashan aan kaga baxo ragga qayb kamid oo ayagana iska shaki badan baa jira oo gabadhu ayadoo iska waxaraga badano dhar way wanaagsan mar walba iska xidhanaysa ayaa laga yaabaa
inuu u maleeyo inay meel kale aadayso oo ay xumaan soo samaynayso oo asagii ay dhaafsan tahay cudurkaa la yidhahdo masayrka ragga qaybo kamida ku dhacana ayadana way dhici kartaaye taasna ayaan lagu degdegin insha allahu tacaala oo shakiga la iska saara ayaan dhihi lahaa. ilahay waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala inuu gabadhaas walaalka uu sheegayo wanaagga iyo xaqa uu tuso, walaalkuna niyadii wanaagsaneed ee gabadha uu ku qaabili lahaa inuu ilaahay siiyo. haddii ay suurtagal tahay hal ama laba su-aalood haddii lagu khatimo aad iyo aad baan u xiisayn lahaa. wajazakum allah khayran.